duulayo hagida iyo tusmaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland ayaa waxaa soconaya qorshayaal kaalin weyn ka qaadanaya barnaamijka xasilinta deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab, kuwaas oo ah mid lagu saleeyay arrimaha mudnaanta leh xilligan, gaar ahaan goobaha lagu dhigay gacanta oo hadda ay wasaaraddu ka wado hanaankii dadka deegaanka lagu gaarsiin lahaa adeegyada aasaasiga ah. Haddaba, iyada oo la kaashanayo saaxiibada xasilinta ee taageera howlaha ay dowladdu hogaamiso ee madaniga ah, ayaa waxaa agab kala duwan oo ah kuwa wax lagu karsado, weelasha biyaha lagu dhaansado iyo maacuun kale la gaarsiiyay bulshada ku nool Janaac Cabdalle oo ka mid ah deegaanadii u dambeeyay ee laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Mudane Xasan Cabdi Guure iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland Mudane Cali Carees Xasan oo si wadajir ah ula hadlay warbaahinta ayaa ka waramaya. Waxaan maanta idin keenay wixii ugu horeeyay oo ah asaasiga ah oo wixii aad cuntada iyo ku karsan lahaydeen jiifka iyo ugu horeeyay dejintii ugu horeysay qalabkii aad wax ku samaysan lahaydeen ayaa maanta idin keenay. waxaana ku xiga oo rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya inaad heshaan deegaankii iyo mataqaanaa raashinkii aad ku karsan lahaydeen weelashan iyo alaabta laydin keenay raashinkii aad ku isticmaali lahaydeen ayaa iyadana laydin keenaya sida ugu dhaqsaha badan. waxaan rajaynaynaa in dhammaan xaaladda aad ku jirtaan hadda xaalad ka roon inaad geli doontaan muddada dhow. waana barnaamijkii u horeeyay oo xasilinta maarta hadba meeshii la qabto oo gacanta nimankaas nabadiidka laga bixiyo dadka ku nool lagu soo haweynayo loona hagaajinayo wixii loo hagaajinayo. sidaa darteed wixii ku xigayana qaybta saddexaadna waxay noqonaysaa iskooladii iyo steeshinadii iyo meelihii layska maamulka ka jira iyo maamulkii baa lagu samayn doonaa. sidaa ogaada waa bilowgii barnaamijkii stabilizationka deegaanada la xoreeyay ee Janaac Cabdalle iyo agagaarkeeda. waxaa waaye markii meel la xoreeyo oo cadowga laga saaro marka hore alaabadan baa loo keenaa oo maaragtay waxay ku seexan lahaayeen marada kale caagi biyaha ku shuban lahaayeen waxaa ku xigo wixii ay ku karsan lahaayeen. waxaa ku xigo oo maaragtay aanu rajaynaynaa waa cuntan iyo weelashan aanu siinay wixii ay ku karsan lahaayeen iyo in loo helo baan rajaynaynaa. way soo daba soconayaan hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa iyo laga gaarahayo in si rasmi ah dadka loo dejiyo oo maaragtay loogu sameeyo stabilization dhab ah. marka sidaasaan ugu talagalnay. Mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in dadaaladani ay bixinayaan miisaan muhiim ah marka la eego ammaanka, nabadda iyo horumarinta oo ah arrimo isbarkan, kana uu yahay wejigii koobaad ee barnaamijka xasilinta. Cabdulaahi Xuseen Kilas, telefishinka caalamiga ah ee Hong Cable, Kismaayo. المنتخب الاسباني بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسعو. halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee goolaadka. شيء كبير السلسعو. kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda
samtel adigoo isticmaalaya hal eber hal samtel caalami.